rajo xubnaheeda iyo wadaniyiinta kale Soomaalida ma bilihii la soo dhaafay arrimahan markay ka baaraandegayeen waxay gaareen oo isku raaceen arrimaha soo socda oo xiriirka la dib u heshiisiinta in markii ugu horeysa aysan noqon hal kulan ee noqoto kulamo joogto ah wadanka gudihiisa iyo dibadiisaba waxaan loogu magac daray kulamada dib u heshiisiinta mideynta iyo badbaadinta Soomaaliya ma hal kulan waa kulamo joogto ah oo dhamaaneen kulamadaasi waxay bilaaban doonaan 60 maalmood gudahooda wadanka gudihiisa iyo dibadiisa waxay u furan tahay Soomaaliya oo idil reer gaar u leh iyo qabiil gaar u leh iyo cid gaar u leh ma jirto waxay ka dhici doontaa meel kasta oo Soomaaliya oo ay xasilooni jirto waxay gaar u tahay Soomaaliya shisheeye meel uga banaan ma jirto meel shisheeye uga banaan ma jirto uma baahnin lacagtooda uma baahnin taladooda uma baahnin aqoontooda maxaa yeelay taladooda iyo aqoontooda iyo lacagtooda waxa lagu hungoobay 9 mar oo hore waxa maalgelin doona maalgeliyaal Soomaaliya oo wadaniyiin ah oo sidoo kale ah oo danqanaya oo aamusna intaas oo sano oo aan u dul qaadan karin Soomaaliya sansi ahaato muddo lagu ma xiri doono inta doonta qaadato bil laba bil sanad laakiin lagu ma kala tagi doono insha Allah waxaan hogaamin doona Soomaali xilkas ah oo loo soo istaago oo la qadariyo oo aan la eedeyn doonin oo aan cid wax ka sheegaysa aysan jirin oo qof walba uu aaminsan yahay inay caadil yihiin insha Allah qodobadaas way qodobada ay isbahaysiga rajo xubnihii ahaa iyo wadaniyiinta ay ku heshiiyeen oo hirgali doonta 60 maalmood oo soo socda wadanka gudihiisa iyo dibadiisa waxaa jira dadaal aan sameynay anagoo waliba kaashanayna nin muwaadin oo Soomaali ah report uu ururiyay iyo talaabooyin uu qaado ilaa Cabdirasaaq Fartaag oo leh Fartaag Consultancy Company oo uu soo ururiyay dad 300 iyo dheeri ah Soomaali ah oo qabiil walba leh oo ka kooban dadkii madaxda hore ahaan jiray dawladihii hore kuwii dhexe iyo kuwii dambe heer madaxweyne iyo heer ra'iisul wasaarayaal rag ahaan jiray wasiirada iyo taliyaasha ciidamada aqoonyahan Soomaaliya aad iyo aad u fara badan dad wadaniyiin oo kaligood duul ah oo iskood 26 sano la soo dhaafay markaan anagoo dhan shaqaysaneen wadanaheena wadanay iyaga Soomaaliya mashquul ku ah inay Soomaaliya nabadeeyaan dadka noocaas soo ururiyay oo 300 iyo dheeri gaaraysa dadkaas waxaan la sameynay xiriir dadkaas intooda badan way ku farxeen waana ogolaadeen inay ka mid noqdaan ma rabna inaan iraahno Soomaalida xilkaska ah oo qoonyahanka ah waa 305 kaliya anagu waxaan aaminsanahay inaan hadalku u dhamaado oo ficil loo gudbo wax walba waa in ficil uu jira ma jiro wax hadal ah maxaa yeelay Soomaaliya inta ka badan ma dul qaadan karto marka 305 dadka rag iyo dumar bale oo wadanka gudihiisa iyo dibadiisa jooga oo qabiil walba Soomaaliya ku jiro oo dad xilkasa oo aan ku tirinayno wadaniyad intooda badan waa la xiriiray iyagoo dhan waa ku farxeen waxayna noqon doonaan unugu ugu horeeyay oo dib u heshiisiinta bilaabi doona insha Allah qolo walba meesha ay joogto ay ka bilaabi doonaan waxa laga yaabaa dadka qaarkii markii hawshaas ay bilaabato inay si kale u fasiraan waxa laga yaabaa inay yiraahdaan waxa isku koobay hawshaas baaxadda weyn la 305 haddaan sheegaynaa arrintan waxay u furan tahay qof kasta oo Soomaali ah oo xilkasa oo wadani ah oo daacada oo lillaahi oo aan dan gaar lahayn qof laga leeyahay ma jirto qof la baamulo ma jirto qof walba awoodiisa waxa ay tahay iyo taladiisa waa u baahanahay waqtigan xaadirka ah marka 305 kuma koobna qofka magaciisa ka waayay liiska aan shaacinayna caawi oo ku jiri doona website-ka rajo iyo Facebook-eeda saxaafadan ay mar hore haysato qofka magaciisa ka waaya yuusan u qaadan inaan ku tirinayno inuusan xilkas ahayn ama aqoonyahan ahayn ama uusan wadani ahayn ma jirto taas waxaan rabnaa inuu dadku ay taa ay fahmaan arrimaha saytu dib u heshiisiinta ah waxaan rabnaa inaan shacabka u sheegno ee warbaahintuna ay fidiso mar hadda aragtaan dad meel ku shiraaya
oo dib u heshiisiintooda ay tahay maalmo iyo seminaaro iyo in la qabto waxaa la rabaa dadka Soomaaliyeed oo hadda maanta iskood u heshiiyey iskood isu dhex qaaday iskood isu ogolaaday iskood isu cafiyey in mar kale dib loogu celiyo aanadii ay qolo walba sheeganaysa hawshii aadan qaban karayn faraha lama galo hawshii aadan awoodeeda lahayn faraha lama galo marka shacabka waxa loo baahan yahay arintaas ka digtoonaadaan sababtoo ah waxa dhici karta in dadyo qaarkii ay sidii sagaalkii mar hore ay project u arkaan dib u heshiisiinta isradaan waxa ku jira dhadhamis marka kuwaas waxaan leenahay waxa weeye dadka waqtiga ka qaadina wadan waa iska heshiis waxa u dhiman wax yar haddii aadan hawsha sida tahay loo fulin karin in laga jooga roon